dalka Soomaaliya wuxuu marayaa marxalad aad u xasaasi ah. Muqdisho waxaa ka socda kulamo siyaasadeed oo culus. Beedhabo waxaa laga soo sheegayaa xiisado iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan. Galmudug waxaa ka socda wadahadalo qarsoodi ah. Puntland waxay si adag uga hadashay xaaladda dalka. Somaliland waxay sii wadaa qorshaheeda siyaasadeed ee gaarka ah. Haddaba maxaa dhab ahaan ka socda Soomaaliya maanta? Yaa is haya? Maxaa laga filan karaa maalmaha soo socda? Daawo muuqaalkan ilaa dhammaadka si aad u hesho sawirka guud Soomaaliya maanta. Assalaamu calaykum asxaabta, ku soo dhawaada channelka. Maanta waxaan si qoto dheer u falanqeyn doonaa xaaladda Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, Puntland, Somaliland, Galmudug iyo Beedhabo. ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan ilaalada gaarka ee madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaan isku xiri doonaa wararka ugu dambeeya xaaladda amniga, siyaasadda iyo waxa laga filan karo mustaqbalka dhow. Haddii aad jeceshahay wararka iyo falanqeynta qotada dheer, subscribe saar channelka si aadan uga harin wararka waaweyn ee Soomaaliya. Qaybta koowaad, maxaa ka socda Muqdisho? Muqdisho ayaa maalmahan noqotay xarunta ugu weyn ee siyaasadda Soomaaliya. Wararka soo baxaya waxay sheegayaan in kulamo siyaasadeed oo waaweyn ay ka socdaan magaalada, kuwaas oo la xiriira doorashooyinka, dastuurka iyo xiriirka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada. Waxaa sidoo kale muuqata in cadaadis diblomaasiyadeed oo sii kordhayo kadib warar sheegaya in dowladda federaalka ay ka walaacsan tahay xiriirada tooska ah ee dalal shisheeye la sameynayaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada. ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan ilaalada gaarka ee madaxweynaha hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa waxa isku dayayaan inay furaan halkan waa halka uu ka socdo banaanbaxa lagu soo jeedo dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Dowladda madaxweyne Xasan ayaa halkan waxay keentay ciidamo. Dad badan ayaa isweydiinaya ma Soomaaliya waxay galaysaa marxalad siyaasadeed oo cusub mise waxaa soo socda khilaafyo hor leh. Dhanka amniga, Muqdisho weli waxay wajahaysaa halis Al-Shabaab, inkastoo dowladda ay wado howlgallo joogto ah. Qaybta labaad, Beedhabo iyo xiisadaha Koonfur Galbeed. Beedhabo ayaa noqotay meel si weyn looga hadalhayo. Wararka ugu dambeeya waxay sheegayaan in xiisado siyaasadeed iyo kuwo amni ay ka jiraan magaalada. Warbixino kala duwan ayaa tilmaamaya in muran xooggan uu ka jiro arrimaha maamulka iyo doorashooyinka. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta ayaa aaminsan in xaaladda Beedhabo ay noqon karto mid saameyn ku yeelata guud ahaan siyaasadda Soomaaliya. Waxaa sidoo kale jirta cabsi laga qabo in muranka siyaasadeed isku beddelo mid amni haddii xal degdeg ah la waayo. Su'aasha ugu weyn ayaa ah, Beedhabo ma noqon doontaa meesha lagu go'aamiyo jihada siyaasadda Soomaaliya? Qaybta saddexaad, Galmudug iyo wadahadallada xasaasiga ah. Marka laga soo tago Beedhabo, indhaha siyaasadda Soomaaliya waxay sidoo kale ku jeedaan Galmudug. Warar cusub ayaa sheegaya in siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin ay kulamo la yeesheen madaxda Galmudug si xal loogu helo muranada siyaasadeed ee ka jira. Waxaa jira warar sheegaya dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo walaacyo laga qabo in xaaladdu siyaasadeed ay sii xumaato haddii dhinacyada heshiin waayaan. Galmudug waxaa loo arkaa meel muhiim u ah isku dheelitirka siyaasadda Soomaaliya. Haddii xaaladdu degto, waxay saameyn wanaagsan ku yeelan kartaa dalka oo dhan. Haddii ay sii xumaato, waxay abuuri kartaa qalalaase cusub. Qaybta afaraad, Puntland maxay ka tiri xaaladda dalka? Puntland ayaa si cad uga hadashay xaaladaha ka jira Galmudug iyo Koonfur Galbeed. Mas'uuliyiinta Puntland waxay muujiyeen walaac ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee amniga ee dalka. Waxaa sidoo kale jira murano la xiriira arrimaha waxbarashada, maamulka iyo wada shaqeynta dowladda federaalka. Dhanka kale, Puntland waxay sii wadaa dadaalada la xiriira amniga, ilaalinta xeebaha kadib dhacdooyin la xiriira afduubyada maraakiibta ee xeebaha Soomaaliya. Dad badan ayaa aaminsan in doorka Puntland uu muhiim u yahay xasiloonida Soomaaliya. Qaybta shanaad, Somaliland maxaa ka cusub? Somaliland waxay sii wadaa dhaqdhaqaaqeeda siyaasadeed iyo xiriirada ay la leedahay beesha caalamka. Arrimaha aqoonsiga, maalgashiga iyo xiriirada dibadda ayaa weli ah mawduucyada ugu waaweyn ee laga hadlayo gudaha Somaliland iyo guud ahaan Geeska Afrika. nin hooraya la oran jiray reer Burca
ayaa waxa la yidhi islaan hilib karsanayso kala cararo. falanqeeyaal badan ayaa aaminsan in go'aanada Somaliland ay saameyn ku leeyihiin siyaasadda guud ee Soomaaliya. Su'aashu waxay tahay daawade, sanadkan ma jiri doonaan isbeddelo waaweyn oo ku yimaada arrinta Somaliland? marka la isku soo duubo, Muqdisho waxay wajahaysaa cadaadis siyaasadeed beedhow waxaa ka jira xiisado saameyn kara dalka oo dhan. Galmudug waxay ku jirtaa marxalad xasaasi ah. Puntland waxay si dhow ula socotaa xaaladda. Somalilandna waxay sii wadaa qorshaheeda siyaasadeed. Soomaaliya maanta waxay taagan tahay meel muhiim ah oo go'aamin karta jihada mustaqbalka dalka. maxay kula tahay adiga qaybtee ayaa ugu saameyn badan Soomaaliya maanta? Aragtidaada ku soo qor commentiga. Ha iloobin like, share iyo subscribe. Aniga iyo idinka waxaan ku kulmi doonaa muuqaalka xiga insha Allah. nabadgelyo.